dabashada inoo dambeysaniyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan iska bilaabanayna barnaamijkeena. waxaynu qeexaynaa caawa 3.3 qodob. soo dhawood aharsa waxaynu ka hadlaynaa asxaabey, waxaynu ka warqabnaa oo aynu si fiican u ognahay, isla markaana aynu isla wada garanaynaa mashaakilaadkii ugu dambeeyey in kacdoomo fara badan oo shacabka ka imanaya culaysyo aan la xadari karin ay ka jiraan gobolkeena. waxa aynu ka warqabnaa oo aynaan is-ilaabsiin karin in 10 sano in ka fara badan shacabkeena la gumaadayay, gaboodfalla lagu sameynayay, jeelale gudaha loo dhigayay, oo weliba naxariis daraan aan la xadiri karin ay ina haysatay ayaynu ognahay. waxa aynu ka warqabnaa in ka badan dhowr iyo 30 sannadood in ay dagaalamaysay jabhad la yidhaahdo ONLF. maxaa haddaba isbedela oo yimid? waxa aynu ka warqabnaa Ethiopia in isbedel ka dhaceen. ra-iisul wasaarihii hore ee Ethiopia in la bedelay oo lagu bedelay ra-iisul wasaare cusub. waxaynu ognahay Oromo qoomiyad leedahay inay kacdoon aad u ballaaran samaysay. waxaasoo dhan daruuraha da-aya iyo dibindaabiyooyinka cadowgu waa askarab yaalaan had iyo jeer. horjoogayaasha cadow kalkaalka ah ee jigjiga jooga iyo guud ahaanba gumaysiguna marba marxalado kala duwan ayuu marayaa. laakiin waxa weeye horjoogaha waqtigan joogana checkpoint waxaa lala ciyaarayaa shax. waxaynu ognahay marka aad jigjiga joogto Facebook aad isticmaalayso hal video ma soo download garan kartid. speedka imika uu ku shaqeynayana waa 4G baa laga dhigay, yacni waa fast speed buu ku shaqeynayaa. sababta maad garanaysaa? Ethiopia lafteeda isaga la ciyaaraysa si uu u waasho oo Facebook fara badan iyo dad fara badan ay u arkaan. waxaa kale oo meesha yaalla in wax waliba shar buu leeyahay. haddaad cabdi ilay waalay oo uu qayrinayo oo horjoogayaashii ay noloshii ka quusteen oo sawirkoodii dadka ku wada qasbeen oo Facebookya intay dadka isugu wada yeedhaan meel ay leeyihiin qof walba reer dhagaxbuurkii baa la isugu yeedhay xalay markaasaa lagu yidhi nin walba 3 Facebook baad leedahay, haye 2 ka mid aniga adigu cayda, haye midna anaad igu taageerta. waayo dad fara badan iminka. laakiin hadduu waxayna sheer dhahde 5 daqiiqaan haddeena haddana markaan iska bixi jirin markaas بالله حتى فعلا والله سويا waxa lagu yiri waa Facebookada soo wada gashaan. hadaba Facebookada hala soo wada galee mashaakilka haysta dadkeeni talo yaa lala hadlayaa. waxa lala hadlayaa social media-hani inuu aalad yahay warbaahineed oo u baahan aqli, u baahan aqoon, u baahan qof wax kala fahmi kara, u baahan qof ceebta iyo maxaa la oran jiray ay dhibayso ma fahmayaan. dhalinyaro lagu yiri uun soo gal Facebook ayaa waxay isu haystaan in ay la hadlayaan oo kaliya dadka mucaaradka iyaga ku ah. laakiin dadkii oo dhan way la hadlayaan. waa dhib jirta. dadkii oo dhan way la hadlayaan. dadka oo dhan ha la hadlaane. dadka oo dhan ha la hadlaan be waa noocee dadkani. waa ceeb tii ugu weyneed adduunka ayaa Soomaali galbeed ka imanaysa. ceebta ugu weyn adduunkuna waxay ka imika dhex taala Facebooki. Soomaali oo dhan 5 Soomaaliyeed ee la sheego 5tuba waxay ka sheekeynayaan dhibaatada iyo ceebta ka imanaysa jigjiga ayay 5tuba ka sheekeynayaan. ha ka sheekeeyaan 5tuba ceebta halkaas. Ethiopia lafteediiba ceebta lafteeda sii faafinaysa. sababtu tahay internetkii free baa laga dhigay. waxaa laga dhigay fast. waxaa loogu talagalay ninka ariga la jooga inuu daawan karo kacdoomada iminka jira. waa shax la doonayo in ninkan lagu waalo. ninkan haddaba hala waalo oo inaga ballankeenu waa hala waalay ahayde waxaynu heshiis ku nahay ceebta ka imanaysa jigjiga mas-uuliyadeeda inaga ale. maxaa yeelay bahasha ceebta la ninka garanaya unbay dhibtaa. ninka aan garanayn ma dhibto. iyaga ma dhibayso. heer waxaa la marayaa la sheego fircoonka ninkan tijaal cawarka imika jigjiga jooga waa cabdiilaya. waxaa